hirshabeelle waxaa u qornayd inay soo saarto 11 gabdhood waxay soo saareen 4 gabdhood waxaa ku harsan 7 gabdhood waxaan rajaynaynaa madaxweynaha hirshabeelle inuu soo saaro 7 gabdhood oo xildhibaan ah si loo buuxiyo qoondada haweenka sidoo kale madaxweynaha Puntland waxaa u qornaa inay soo saaraan reer Puntland 11 gabdhood waxay soo saareen 5 waxa laga rabaa 6 gabdhood oo xildhibaan ah inay ku soo daraan si loo gaarsiiyo qoondada ugu yaraan 30 galmudug waxa uu qoraa 11 inay keenaan 7 soo saareen 4 ku harsan waxa la rabaa iyadana inay soo buuxiyaan madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne ku dhiiro inaad maaragta keento qoondada haweenka sida madaxweynayaasha kale ay la rabaan inay ugu dhiiradaan koonfur galbeed waa meesha ugu cajaa'ibka badan oo marka hore aqliga naga xaday maskaxda naga xaday aan u qaadanay inay yihiin kuwa gabdhaha naxariis u qaba oo gabdhaha qadariya oo gabdhaha xuquuqdooda soo saaray waxa laga rabay inay keenaan 12 gabdhood waxay soo saareen 12 gabdhood ayaa ku harsan waxaan rajaynaynaa madaxweyne lafta gareen sidii marka hore uu gabdhaha u soo saaray 10ka inuu dhamaystiro oo uu gaarsiiyo 12 oo 30% ugu yaraan uu qoondada buuxiyo waxaan maaragtay Jubbaland waxay soo saareen 4 waxa laga rabay 9 gabdhood ku harsan waxaan rajaynaynaa marka inay dadaalaan oo madaxweynaha Jubbaland sidoo gabdhaha ugu hili jiray uu ugu hiliyo sidoo kale gobolka Banaadir waxa laga rabaa in maxaan ku iraahdaa ay soo saar waxay hayaan 5 marka 6 waxa ku waajib 2 laakiin tirada marka la fiiriyo xisaab ahaan waxay aadaysaa 2 aadaysaa waayo markay 5 ay maaragtay laga rabay oo ay keenaan mid 3 ayay mid ku keeni lahaayeen marka 2 gabdhood oo kale 2 xubnood oo kale oo xildhibaan ah ayaa laga rabay inay keenaan waxa taa marka ay waajib ka dhigaysaa maadaama ay u dhow yihiin 6 inay 2 gabdhood keenaan waxay keeneen hal ku maqan Somaliland waa qolada ugu fiicneeday oo dadaashay waxa laga rabay 14 waxay keeneen 13 waxa lagu leeyahay gabar doorashadana waa u dhamaatay ayaga labaduba Banaadir iyo Somaliland labaduba way dhameystireen waxaan rajaynaynaa marka iyagoo dhameystiray laftigeeda kursiga gabadha ay ka xoogeen way og yihiin Somaliland way ogtahay Banaadirna way og yihiin sida awgeed in gabdhaha ay soo saaraan oo ay siiyaan xuquuqdooda hadii kale waa adkaanaysa kursi gabar laga soo xoogay in baarlamaanka lagu fariisto oo shacbiga Soomaaliyeed lagu matalo waayo gabadha iskale gabadhuna waxay ku leedahay xaqnimada Soomaalinimada iyo sharciga iyo heshiiska doorashada loogu talagalay in lagu dhaqan geliyo